Okay, qodobkan waa qodobkii badda. Badda haddii for example Soomaaliya xeebaheeda way badan yihiin. Nawaaxiga Muqdisho haddii ugu yaraan 2,000 ilaa iyo 3,000 lagu daadiyo oo loo xil saaro Muqdisho ilaa iyo Marko, maxaan ku dhahaa dhinacan Shabeellaha Dhexe, ayadana mataqaanaa ilaa iyo 2,000 badda lagu daadiyo ilaa iyo Cadala iyo meelahaas oo dhan ee mataqaanaa ka kalluumaystaan. Dhinacan Hobyo 2,000 ilaa iyo 3,000 lagu daadiyo. Dhinaca Baraabe 2,000 ilaa iyo 3,000 lagu daadiyo. Dhinaca Jubbaland Kismaayo 2,000 ilaa iyo 3,000 lagu daadiyo. Meeqa kun aan soo sheegnay? How many thousands? Marka dowladdu way u heli kartaa inay u raadiso doomo ay ku shaqaystaan, weliba kasii dhex abuuro wixii ay la soo baxaanna suuq local international loo sameeyo, dad badanna ay shaqo abuur ka heli karaan, baddoodana ay ku difaacan karaan. Ay fahamnaa umaleynaa. Laakiin dowladda qidadkii lagu maareyn lahaa dalka wuu ka maqan yahay. Nin walba wuxuu ka fikirayaa kursigan aa fadhido intaa ka dhimanaysid fadhi, war kursigan dhaxal aabaha maaha, goofow dhaxal aabaha maaha. Marka dhaxalka lagaa rabo inaad adiga dhaaftaa waxay tahay dadka wax fiican u reeb. Madaxda meelaha ay ku liitaan meelahaas waaye, inay dheela iska cunaan, iska tuntaan, meelahooda ay wareegaan, oo dheela qaali ay seexdaan, marba VIP ay maxaan ku dhahaa first class diyaaradaha ay ku duulaan, ma fahamtay? Dadkuna ay iska rafaadsan yihiin. Qodobkaas waaye, dhinaca badda waa inay ka faa'iidaystaa dowladda.